madaxweynayaashii hore, ra'iisul wasaarihii, guddoomiyaashii, wasiirada, xildhibaanada, walaalaha ka soo qayb galay kulankan ducada ah ee loogu sameeyey walaasheen Aamina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waa runtii geeri xanuun badan. aniga ka shakhsi ahaan Aamina waxaana dhex maray arrintii Ikraan Tahliil oo aad la socoteen siday ku bilaabatay iyo ilaa hadda meesha ay marayso. saan ka ballan qaaday maalintii ugu horreysay ay yimaadeen Aamina iyo Ikraan hooyadeed iyo ugaaskaba, waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso. ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay. laakiin waa la igaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa kusoo gabagabeeyey war ragga kala celiya anigii madaxweyne Farmaajo. ma ahayn taargetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay Ikraan Tahliil oo ay Aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro. laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo, in Aamina gacanta ka gardaran ee dishay ee ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. sababtaan saas u leeyahay wax kale maahan. walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu soo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siid ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta ay u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, uuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaas la bedelo. waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee Aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. ilaaha iga sarreeyo. wax saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay wahaya oo leeyahay kursigaas Aamina furitaanka afurteen Bob iyo ujeedda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. wahaya message waa u dhimanaa, waan u dhiman doonaa hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. Aamina walaashay ahayd. dadkii ka dambeeyey ilaahay waxaan ka baryayaa, waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto, laakiin waa ka guulaysanayna hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyey, ninkii Aamino isku qarxiyey ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay Hiiraan Beledweyne. waa nool yihiin kuwii abaabulay, waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyey. laakiin insha Allah Allah subxaanahu wa tacaala wuu ka soo saarayaa xaqa darrada ay galeen hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo, mana ka harayno intaan noolahay. waxaan idiin sheegayaa xilliga doorashada lagu jiraa, waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada. dadka qaarkood ay taagan tahay cadkaygii oo ku cun ama ku ciiday. laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo 14 Abriil ama waqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. markaas ayaan guulaysan doonaa. inta dembiga gashayna markaasaan la xisaabtami doonaa hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan idiin sheegayaa xaqaas oo ah inaan ka miro dhalino ka Rooble ra'iisul wasaare ahaan. Allah subxaanahu wa tacaala hortiisa idinkaga qiraya waa iga go-an tahay.
waana u dhimanayaa cid kastoo isku daydo inay handado cawadaba raalli laga meen inaad soo baxo marka mar horaan dhintay laakiin waa noolahay insha Allah waana guulaysanayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi